السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا توسي تيرتينجيل ما أنت موضوعنا وحو كسابسية نظامك فهمك نظامك والمركز سيدة تذكر إنه عادي أي يقانان نظامك يفهم كيس وحوي أنت بدن أرياضة أنت بدن صار نقطة تذكر أي كفهن سين نظامك وحوي وكلا ضمبينتا اسمامولك لمبر صدح مامول دادتشينتا يهول قبسيغا marka dadkeenu inta badan marka maamul laga sheekeysanayo ama maamul la soo hadal qaado ama nidaam la soo hadal qaado dadkeenu nidaamku waxa uu fahansiin wixii inuu madax yimid yeesho waxa ku hornaa inuu meesha waa meel nidaam leh oo ID ka lagu garo oo security-geedu adag yahay marka mafhuumka guud ee ka fahansiin waxa uu mareynaysaa inay u badan tahay inay kala dambeyn iyo madax yimid mid la maamulo iyo mid wax maamula ay tahay ayuunbu nidaamkooda ugu weyni ay ka fahansan nidaamku ku soo kooban yahay bal marka waxaan doonaynaa inaynu daaqad kale ama dhinac kale walaalayaal ka istaagno oo aynu fahanno bal nidaamku waa maxay nidaamku fahankiisa saxdi ma tan intan ay qaanuun ah kala dambeyn iyo ismaamulba mase nidaamku micno kan uu leeyahay marka laga hadlayo cilmiga ijtimaac halkan waxa ku qoran maamul nidaamka iyo fahamka saxda ah haddaba hada doonayso inaad nidaam aad tacriifiso ama nidaam aad fahanto ama nidaam marba niyadaada ay ku soo dhacdo waxaad maskaxdaada ku aasaastaa 40 fikir ama 40 shay baa nidaamka ka dhigan nidaam haddii nidaamku aanu 40 shay ka koobnayn nidaam maaha ama nidaam dhammaystiran maaha marka number 1 horta nidaam waxa la yiraahdaa waa inuu yeesho waxa la yiraahdo wax gelin amba input waxaasoo ah shaygii wax lagu fulinayay kii wax lagu sameynayay kii wax lagu fulin labadiiba waa inay noqdaan inay meesha mawjuud ahaadaan number 2 waa inay hawlo nidaamku uu fuliyaa waxa weeye hawlo iyo wax qabad iyo waa inuu nidaamku fuliyaa number 3 waa inuu nidaamku maxsuul iyo soo saar yeeshaa number 4 la socosho iyo qiimeyn oo ugu muhiimsan ah haddii hadaba mafhuumka 4tan aynu ku dabaqno sa u fahantaan dadku waxa la yiraahdaa tusaale wax ku fahmaanay tusaale waxa noo soo qaaday iskuul ama jaamacad haddii iskuulka ama jaamacad tusaale ka dhigano manhajka iyo ardayda iyo macallimiintu waa inputkii ama waa wixii wax la gelinayay okay hawlaha la qabanaya waa waxbaritaankii ama waxbarashadii xisas baa la gelaya dadkii waa hawlihii yani waa hawlihii marka la qabtana hadhow maxsuulku wuxuu noqonayaa ardaydii inay aqoon faa'iideysatay oo aqoonteeda ay kordhay waxa weeye waa input waa outputkii ama waxa weeye wax soo saarkii ama natiijadii weeye ta afraad ee ugu dambaysa ugu muhiimsan waxa weeye la socoshadii iyo qiimeyntii haddaba nidaamkeeni sida ahaa ma nidaam wax soo kordhiyayba ma nidaam wixii hore wax ka bedelayba ma nidaam faa'iido keenayba waxaynu ku arkaynaa qaybtan ah la socosho oo step by step la soo socdo iyo qiimeyno number 4 baa inoo sheegaya inuu nidaamku yahay nidaam wax soo kordhiyay haddii halka hawlgalka aynu ku noqono waa horumarintii iyo bilaabitaankii iyo samayntii iyo kordhintii iyo dhimistii bal haddaba iminka 4tan shay waxaad ku dabaqdaa haddana iminka bal tusaale kale dawlad haddii dawladii soo qaadano oo nidaamkii dawladnimo aynu wax ka doonayno inaad wax ka fahanto waxa weeye dawladii marka hore waxay haysataa budget iyo dad iyo ciidan iyo suuq iyo sheeg waxbarasho iyo health iyo caafimaadkii inta waxa la rabaa inay hawlo ka qabato hawlahaas oo ah horumarin hadda ma fahantay biirin iyo basasho weeye waxa kale la rabaa inay intaas markay dhacdo in hadana number 3 wax soo saar iyo maxsuul la helo maxsuulkii marka la helo marka dawladda iyada isqiimeyn maysa ee gacan saddexaad waa inay qiimeysaayo sheegtaa in nidaamkiisa iskugu xidhnaa uu wax hawshii ay wax isbedel ku keentay arrimihii hore loogu dhiibay ee wax gelitaanka ahaa marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen nidaamku wuxuu yahay nidaamku maaha kala dambeynun nidaamku maaha in ID card fooq lagu galo nidaamku maaha ma garanaysaa ay sheeg wax ma garanaysaa security-giisu adag yahay nidaamku maaha in cid maamusho ee nidaamku waa inuu 4 qodob amba 4 dhidib oo ku taagnaada waa wixii wax lagu gelinayo amba inputkii waxa weeye hawlihii la qabanayay wax soo saarkii iyo outputkii iyo wixii waxa soo baxay lagu qiimeynayo oo ah qodobka ugu muhiimsan marka dad maanta bulshadeena adagto qodobka inta badan la seegay ee ma garanaysaa aan yani de barsharka badan la saarin waxa weeye waa qiimeyntii iyo la socoshadii waxay ahayd in qodobka aad oo la barbar dhigo wixii markii dawladii ama nidaamkii hore uu jiray in nidaamkii dambe la barbar dhigo in wixii la eegay in wax soo kordhiyeen hawlahoodii inay horumar samaysay oo qidaaci ama dhinacii waxbarashada ama dhinacii ma garanaysaa caafimaadka ama dhinacii ma garanaysaa ay sheeg magaaleynta yani inay nidaamkii uu wax bedelay marka nidaam waxaad u fahansanaataa inuu 4 qodob yahay aad baan idin salaamayaa tusse 13 jiil salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh